kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaad nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. caalamka ayaa dalal badan oo kamid waxa ay hore ula dagaalameen cayilka oo dadku waxa ay u arkayeen foolxumo iyo waxaan u wanaagsaneyn qofka waxaana taas iyadoo ay jirto haddana Soomaalidu markan ay dareemayaan in cayilku qurux ahayn taasoo dad badan ay ku qasabtay hadda in ay gym ama goobaha jirdiska aadaan. caatanimada qaar waa foolxumo balse cayilka waa cudur jirka ayuu sidoo kale suurad xumeeya ka sokow. daraasad la sameeyay ayaa la ogaaday in cayilka adoon lacag ku bixin gymna aadin ama daawo kale aad haddana iska jari karto. haddaba waxa wanaagsan sida la leeyahay in lagu qobaysto biyaha qabow si uu jirka u dareemo firfircooni dhididkana looga taqluuso. laakiin dadka qaar waxaanay ogeen in caadadani ama arrintan ay leedahay faa'iidooyin fara badan waxaana ka mid ah in miisaanka saa'idka ah lagu dhimo xaaladda nafsi ahaaneed ee qofka uu ku hagaagto iyo faa'iidooyin fara badan oo kale waxaana ka mid ah in biyo qabow oo lagu meero ama lagu qabaysto jirkana la mariyo waxay ku dareensiisaa nashaad iyo firfircooni. baraarugaaguna wuu ku kordhaa taasi beddelkeeda waxa uu kordhiyaa oksijiinka jirka uu helo waxaa ku kordha heerka dhaqaaqa wadnaha iyo weliba burqashada dhiigga ee dhanka wadnaha oo farabata. sidoo kale biyaha qabow waxa uu kaalin ka qaataa in laga taqluuso welwelka daalka waqtiga dheer ee keena madax xanuunka iyo weliba kala daadsanaanta qofka. daraasadda ayaa sidoo kale waxay leedahay biyaha qabow waxa ay hagaajiyaan haddii lagu qabaysto ama jirka lagu meero xaalad nafsi ahaaneed ee qofka miisaankiisa saa'idka ahna waa lagu dhimaa ama waa lagu jaraa. waxaa jira laba nooc oo dux ah oo midib bunni ah waa nooca uu jirka u baahan yahay ee tamarta laga dhaliyo iyo baruurta cad waana nooca dadka badankood ay jeclaystaan in ay iska dhimaan. marka biyaha qabow waxa ay dhiirigeliyaan baruurta bunniga ah oo tamar badan soo saarta baruurta cadna wax badan ka gubta arrintaas oo keenaysa in miisaanka jirka uu isdhimo. ugu dambeyn biyaha qabow waxa ay ku badbaadiyaan tamar badan oo koronto ah oo aad ku bixin lahayd diirinta ama inaad kululayso biyaha marka aad inaad isticmaasho aad rabto koronto ama dabba midaad rabto aad isticmaashide. bal ka waran daraasadan daawada sidee adiga aad u aragtaa mise kula tahay in ay suurtagal noqon karto haddii aad tahay qof cayilan ama jirkiisa inuu dhimo doonayo bal soo tijaabi daraasadan. haddaad ka heshay muuqaalkan dhiirigelinta ah like noogu dhufo sabskraibekana haddaadan hore noo siinin sabskraibna dheh haddaadan hore noogu soo biirin waana mahadsantihiin. intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid lamida isku arki doonno sidaas iyo nabadgelyo.